kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha bariga dhexe iyadoo shalay ay Israa'iil weeraray magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar falcelin badan ayaa arrintaasi ka timid iyo cambaareen ay Israa'iil la kulantay saacadii ugu dambeeyay waxaana Cabdiqaadir Axmed oo la socodsiinaya wararkaas iyo xaaladii ugu dambeeyay ee bariga dhexe waa maalinimo Arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha 9aad sanadka 2025 maalinimadii shalay maamulka Israa'iil waxa uu weeraray gudaha dalka Qatar iyadoo oo magaalada caasimadda ah laga maqlay dhawaaqa gantaalada ay sida darandooriga u ridayaan diyaaradaha Israa'iil iyadoo bartilmaameedku uu ahaa guri ay ku shirsanaayeen ururka jihaadiyiinta ee Hamas weerarkaas waxa Hamas uga geeriyooday 5 qof ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay waxaana dawladda Qatar oo dhulkeeda la weeraray ay arintaasi ku tilmaamtay in madax banaanideeda la dhaawacay Mareykanka war ka soo baxay waxa uu ku sheegay in ka hor intaanu weerar ku dhicin ay wargeliyeen jamhuuriyadda Qatar laakiin Qatar arinkaasi way beenisay war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladaha Turkiga Masar iyo qaar ka mid ah dawladaha khariijka ayaa arinkaasi cambaariyay haddaynu ka hormarno dawladda Turkigu waxa ay cambaaraysay weerarkaasi waxaana ay ku tilmaamtay dawlad argagixiso ah oo weeraray dawlad kale dhulkeeda dhanka kale madaxweynaha waddanka Turkigu waxa uu ballan qaaday inay garab taagan yihiin jamhuuriyadda islaamiga ee Qatar dhanka kale dawladda Masar waxay cambaaraysay weerarka waxaana ay weerarkaasi ku tilmaamtay weerar aan si nabad loo dhageysan karahayn sidoo kale dawladda islaamiga ah ee Iran iyaduna waxa ay cambaaraysay weerarka arrintan ayaa loo arkaa mid aan si nabad loo aqbali karin in ay Israa'iil mar walba jabiso xeerarka caalamiga ah geesta kale marinka Gaza hadaynu eegno waxa ay maalintii shalay Israa'iil halkaasi ka sameysay hawlgallo deegaameyn ah iyadoo horay uga digtay dadka Falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed inay isaga guuraan guryaha waxaana ay shalay warbaahinta Al Jazeera soo bandhigtay in fooqaq ku yaala eriyada Gaza lagu arkayay gantaalada Israa'iil oo ku hoobanaya wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe waa inaga intaas haddii aad inagu cusub tahay daawade inagu soo biir haddaad horey inoola joogtana waad ku mahadsan tahay commentiga araadaada iyo fikradaada inagu reeb share garee si asxaab adigoo kala u gaaro wararka iyo wacaalka aynu halkan ku tabino